mudana madaxweyne khudbadaadii waxaad ku celcelisay in horumarka ay saldhig u tahay nabadgelyadu isla markaana ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada laakiin xubnihii ugu dambeeyay ee lagu qabtay xadka ee ka tirsanaa ururka nabadiidka Obbo oo Eritrea ka yimid waxay sheegeen inay Muqdisho isku soo abaabuleen marka arrinta maxaad ka oran lahayd nabadgelyadu waa waxyaabaha laga wada shaqeynayo oo runtii horeyna aad looga ballanno dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya ay ka ballameen in laga wada shaqeeyo ka mid tahay hadda kooxahaas waa kooxa maxaan ku raadaa tuuga oo dhuumaalaysanaya oo ilma eegtaa la yiri meelaha ka dusayo oo meelaha muxuu ahay hay'adaha amnigu ay anay joogin ama meelaha qolada kale saaxiibadooda ee nabadiidka ah meelaha ay joogaan ama shabaabka ku soo dhax dhuumanayo oo soo marayo ubadda shabaabde ugusde alqaacidade waxaanay cid kasta oo dadka iyo deegaanka deganaanshiyo u diidan wax macna midkaan oo ka sii naxariis daran yahay iyo in la yiraahdo waa macquul laakiin waa isku kategori wax uma dhaamaan ubbo iyo shabaab iyo ugus iyo waxba isma dhaamaan dhammaantood waa dad nolosha bini aadamka ay dhibayso weeye marka annagu wixii waxa ku mashquulsan oo dhan kuwan hadda waaba Soomaali walaalaheena ay dhibayaan xataa kuwa caalamka kale dadka naga fog dhibaya xataa annagu col baan nalnahay marna islaamay wixii tuuganimo oo soo baxsado meel ka soo duso waa gooy laakiin annagu dalka Ethiopia waa kala shaqeynayna wax kasto Ethiopia caqabad ku keenayna waa wax Soomaali caqabad ku hayo way jirtaa in dhinaceena ay koox badan oo maxaan ku raad tuuga ah oo meelaha dhuumaalaystahay ay joogan laakiin haddii ay tahay dawladda Ethiopia guud ahaan iyo dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia intaba amniga marna annagu ma tanazul kama sameynayno si buuxdan uga shaqeynayna hadba inta awoodeenu ay la egtahay